ugu horeyn magacaygu waa Imaan Maxamed Xasan dhigata dugsiga sare Al-Xigma fasalka Form 4 haddii aan isku dayo ka jawaabo su'aashii ugu horeysay oo weydiiyay walaalkay oo ahayd maxaad ka aaminsan tahay FGM ama gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga iimaan ahaantayda waxa ka aaminsanahay inuu yahay fikrad khaldan oo ay ikhtiraaceen dad yowgii naga horeeyay aabayaashan iyo hooyooyinkeen awoowayaashan fikrad khaldan oo ay ikhtiraaceen iyagoo ku ikhtiraacay gabdhahooda dhalaankooda wadadaas khaldan ay jeexeen ilaa hadda ay saameyn ama dhibaato ku hayso gabdhaha iminka jooga iyo kuwa dhalanayaba wacyigelinta FGM-ka ama gudniinka fircoonigu halistiisa iskoolada ma ku qaadataan wacyigelin la xiriirta oo macallimiintiinu ma idan baraan dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga walaahi macallimiintu way kala duwan yihiin laakiin aniga su'aasha waxaan uga jawaabi karaa macallimiinta sida maadooyinka u kala dhigaan bay mawduucyadana ugu kala firfircoon yihiin waxa laga yaabaa markii arrinkan wuxuu la xiriiraa arrin diini ah macallimiinta aadka uga hadli karo kale oo munaasabka yani qofku labada dhanba inuu ka dhisan yahay way fiican tahay labada dhanba inuu waxbarashada ka wato laakiin macallimiinta maadiga dhiga inta badan mawduuca afaarooda ma galaan midda kale oo dhihi karana de macallimiintu waa rag arrinkaas iyaga dhib kuma hayaan dhihi karaa marka haddaan ka hadlo waxyaabaha ama fikradaha ideas-kan ka aaminsanahay gudniinka fircooniga waxaan dhihi karaa waa caqabadaha ugu badan ee bulshadeena haysta taasoo gaar ahaan hablaha loo geysto caqabadaasoo ah aan ku dadaali lahayn waxaana laga rabaana habkan ugu dadaali lahayn oo uga suulin lahayn ummadeena Soomaaliyeed marka waxaan aaminsanahay inay tahay caqabadaha ugu badan ee soo wajaha hablaha marka wacyigelinta FGM-ka ama gudniinka fircoonigu ee halista ah iskoolada ma ku qaadateen macallimiintu midku wacyigeliyaan waxa laga yaabaa tusaalaan team ahaan ama inaan loogu qaban laakiinse markay noqoto macallimiinta oo kale ay nagala taliyaan oo naga waaniyaan oo waxyaabo badan tusaalaan naga siiyaan tusaale oo dhahan marmar la isbarbar dhigayo fircooniga iyo sunniga marka aad iyo aad macallimiintu aad bay nooga waaniyaan ama nagala hadlaan markaan eegno qoys baa ka soo jeeda ma jira saameyn uu geystay maadaama aan ognahay in waqtiyada hore dadka bilowga hore ee nolosheen marka caruurta ahayn dad badan oo gabdhaheen ah in uu saameeyay dhibaatada loo geystay maxaad noo sheegi kartaa haddii uu saameyn ku yeeshay qoyskiina haddaan ka hadlo qoyska way jiraan dad loo saameeyay xilliyadii hore hadda wuu jiraa wuu socdaa laakiin aad waagi hore waxa loo isticmaali jiray sanadada hore in gabdhaha loo gudo marka gabdhaha waxaan dhihi karaa labaad adigu 15 wixii ka weyn habkan fircooniga ah baa loo guday oo marka 100% familka ugu jira waxa laga yaabaa familka markaan ka hadlay qoyska in aanu kala ugu yarahay inta iga sii waaweyn waxa laga yaabaa hal iyo laba marka laga ramaan inta kale inay u gudan yihiin fircooniga awlan magacay waa Hodan Xasan Faarax dhigata dugsiga sare Al-Xigma fasalka afraad ee dugsiga sare insha Allah sanadiyada cusub baan noo biloomay ilaahay khayr noogu dhameeyo waan inay ka mahad celinayo qolaha saxaafadda inaan soo booqateen maalintii ugu horeysay iskuulka aan imaanay waan inay soo dhaweynaynaa intaas kadib su'aashaas hadda u soo laabto sida walaalay iga horeeyay sheegeen barnaamijka FGM ama gudniinka fircooniga Soomaaliga lagu dhaho aniga fikirkayga hadda ka hadlo ama sidoo yahayba aan isku dayo horta waa caado soo jireen ummadda Soomaaliyeed ay caadeysteen laga yaabaa wadamo iyo qarniyo ka horeeyay in la isticmaali jiray laakiin bulshada casriga nool maanta oo wax baratay oo culimada leh oo macallimiinta leh oo ardayda leh waa barnaamij gafku ah gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaaniin diintana anu intaan ogahay kol saliya raad meel ku leeyahay ma arkin dhanka kale caafimaadkana waa uu daran yahay oo gabdhaha Soomaaliyeed markii laga yimaado 2005 wixii ka horeeyay waxaan dhihi karaa gabdhaha dhashay wax u guday gudniinka fircooniga ah wala waa dhawahay magacay waa Saare Maxamuud Jaamac waxaan dhigtaa macadka Xaaji Cabdi midwayfari baan ahay faculty of midwayfari
walaal waan dhowahay gudniinka fircooniga ana wala wada ogyahay saameynta uu leeyahay oo bulshada Soomaaliyeed uu ku leeyahay maanta iyo horay wax jiilkii hore oo macna jiilashii horeba u soo jiray oo ilaa iyo hadda inkastoo uu boqolkiiba lama oran karo laakiin ilaa iyo boqolkiiba 60 hadda sidii horeeto uu iska soo bedelay oo dadka ay soo fahmeen dhibaatooyinka uu leeyahay haddana waynu wada ognahay saameynta uu leeyahay xagga bulshada Soomaaliyeed marka loo fiirsho waa gartay wacyigelinta FGM-ka ama gudniinka fircoonigu halistiisa iskoolada ma ku qaadataan wacyigelin la xiriirta oo macallimiintiinu ma idan baraan dhibaatada uu leeyahay gudniinka markaan ku soo jirnay dugsiga hoose ama dugsiga dhexe dawaa la soo wada marayo waa la ogyahay gudniinka fircooniga waa laga hadlaa laakiin faahfaahinta ilaa xadkaas ardayda lagama siiyo taasna waxa weeyaan wax qaabilsan baysan ahayn inta badan markaan ka hadlo maxaan dhahay hadda waxbarashada aan ku jirno maadaama aanu anagu hadda faculty kamid ah caafimaadka aan nahay siiba hooyada iyo dhalaanka uu takhasuskeedu yahay ama waxyaalaha anagu faculty-ga hadda baranayna uu yahay hooyada iyo dhalaanka maxaan dhahay badbaadada hooyada iyo dhalaanka haddana sidaa darteed waxaan aaminsanahay in macnaha wax badan oo isbedel ah iskoolaadka yagii hore ilaa hadda isbedel badan aanu hadda hayno oo naloo sii faahfaahiyey oo macallimiinteedu si fiican noo bareen dhibaatooyinka uu leeyahay iyo sidoo kale siyaabaha looga hortagi karo intaba aniga qoyskayga qof saameyn intuu ku yeeshay saameynta ama hadda wuxuu ah ama u dhintay aniga ma arkin laakiin waxyaalaha aan maqlo waxa kamid ah qof intii lagu sameeyay oo kale dhintay oo maqaale igu soo gaartay laakiin aniga wali qof ma arkin halistiisa qaybo badan wayna saameysay anagu waa soo marnay laakiin hadda wax dhibaatooyinka sida hadda qof u dhintay oo kale markii lagu sameeyay alxamdulillah taama aanan arag maxaad marka tala ah ayaad gabar baa tahay waxbarasho ku jirtaa wax badan baad og tahay hooyo noqonaysaa caafimaad baad dhigataa ummad baa u shaqaynaysaa waa maxay talaadaada aad ku beerinaysaa si loo joojiyo loo dabargooyo gudniinka fircooniga maxaa tala ah ayaad bulshada la wadaagaysaa waxaan la wadaagayaa taladeeda hadda qofkaan marka waan ku dhahaa ha sameyn alxamdulillah waana fursad haddii ilmahayga aysan intaas ku dhacayn waxaan oran karaa waa intaan wax bartay taas qoyskay gabdho way la dhasheen laakiin dhibaato hadirtaan ma nagala kulmeen anaga kalama kulmin qoyskeena waa gartay waxaan kaloo weydiinayaa adigoo mahadsan arday ahaan markaad iskoolkan soo galaysay hadda oo kale maxaa iska bedelay fikirkaaga gudniinka fircooniga wax cilmi ah uma lahayn markii aan iskoolada kale iyo dhiganay laakiin markaan soo galay kulliyadda caafimaadka inkastoo iskoolada la soo wada maray adoo iskoolaan soo maray baa misana hawlahaas iyo lagu dhigan jirin laakiin marka meel caafimaad tagtid waa waxa ugu horeysa oo lagu barayo siiba xagga dumarka waxyaalaha dumarka ku saabsan marka baranaysid marka waxa weeye markaas aan soo galayay macadka wax fikra ka hor wax fikra kama aaminsaneen inuu wax dhaqan yahay ama caado yahay waa ogaa laakiin wax saas weyn ma ka aaminsaneen saa hadartaa uga aaminay inuu khatar leeyahay inuu halistiisa badan tahay marka waxay magacayga waxa weeye Sunti Maxamed Xuseen kana mid ah ardayda Xaaji Cabdi qaybta midwiferyga wala soo dhaw gudniinka fircooniga waxaan ka aaminsanahay wax xun oo la taqaan gabdhihii waxaan ka aaminsanahay caado xun oo soo jirtay awrka hore taqaanaan ahna in gabdhihii taqaanaa lagu jaro xubnahooda waa gartay dugsiyada aan wax ka bartaan Xaaji Cabdi oo joognaa ka war macallimiintiinu iyo dadka wax xidhi bara ma idinsiiyaan casharo ku saabsan dhibaatada gudniinka fircooniga leeyahay ama wacyigelin ma idinsiiyaan waana la siiyaa waana la hadla casharadiina way noogu jiraan waana nolol sheegada gudniinka inuu xun yahay inuu gabadha saameyn badan ku geysanayo in anagu wixii aan baranay doono la baranay in aan sii gudbinana waana loo sheegaa waa gartay marka sidoo soo xalabna gabdho badan oo Soomaaliyeed wala dhibaatay gudniin ayaa lagu sameeyay fircooniga oo diinta iyo dhaqanka soo jeeda iyagu ma ahayn waxa ay jooskoodu ma ahayn oo wuxuu ahaa mataqaana wax ka yimid familkooda marka gabar baa tahay hooya waxa weeye soo diyaarinaysaa adiga qoyskaaga gabdhaha kula dhashay gudniinka fircoonigu dadka ka badbaadin ku jirtaan ama sab u sameeyey
horta qoyskii markuu noqdo qoysku waa wax badan marka soo sax weeye qoyskii anaga intaan hadda jiilka waan ka badbaadnay anagu waan ka badbaadnay dhaqan gabdhaha ay walaalahay ka siiyeen way ka badbaadeen laakiin haddana family-gii qoysaskii hore waa soo saameeyay magacayga waxa la dhahay Ifraax Axmed Xamed waxaan dhigtaa macadka Dr. Axmed oo aan ka tirsanahay arrinka mawduuca laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay gudniinka fircooniga wuxuu leeyahay dhibaatooyin aad u fara badan ama caqabado aad u fara badan wuuna ku haya caalamka oo dhan khaasatan waliba deegaanka ay degto Soomaalidu dhibaatooyinkaas lama soo koobi kara aad ayuu u badan yahay dhibaatooyinka uu ku haya gabdhaha Soomaaliyeed laba qodob ayaa ugu muhiimsan markaas laba qodob ugu muhiimsan waxay tahay qodobka koowaad gabadha caafimaadkeeda inuu ugu daran yahay qodobka labaadna gabadha mustaqbalkeedii aayaheeda dambe inuu u daran yahay caafimaadka uu u daran yahay gabadha waxa laga yaabaa waqtiyada caadada ku dhacdo kale inay gabadha ku xanuunsato kale waqtiyada maaragtay gabadha marka ama ay aqal gasho kale ama la aroosto oo marka ay umusho oo ilmo dhasho kale camal ah in markaas gabadhii ay umul weydo kale ay ku xano ilmihii markaas dhibaato badan ka soo gaadho xitaa ay sababi karto gabadhii inay marka dhimasho iyo wax la mid ah gabadha hadii dhali weydo kale in la qalo qalin lagu sameeyo qalinkaas laga yaabo xitaa marka inay u dhimato kale dhibaatooyinkaas aad ayay u badan yahay lama soo koobi karo waana arrin aad u xun waana wax marka sharciyadeena aan waafaqsanayn oo sharciyada marka meel laga sheegay aysan jirin gabdhaha waa la gudaa gudniinku waa banaayahay laakiin fircoonigu ma banaana diinteenana markaas meel lagu sheegay ma jiro xadiis sheegayna ma jiro aayad quraan oo sheegayna ma jiro waa caado dhaqameed ay Soomaalidu aaminsan tahay waana wax markaas in la baabi'iyo oo markaas sidii lagu baabi'i lahaa ama markaas deegaanka looga jari lahaana ay falankeeda la qabto sida muhiimadda ugu weyn oo laga hortagi karo marka ama lagu baabi'i karo arrinkaas waxay tahay in wacyigelin ballaaran loo sameeyo bulshada meel kasta ay joogto waliba meelaha khaasatan dadku isugu yimaadaan oo ay ku badan yihiin sida goobaha shirarka oo kale iskoolaadka oo kale dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan wacyigelin ballaaran loo sameeyo bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Faadma Cabdiqaadir Maxamed waxaan dhigtaa iskoolka Dr. Axmed College gudniinka fircooniga waxaan ka aaminsanahay horta waa fikrad aad u khaldan waana maxaa la dhahay caado dhaqameed soo jireena inkastoo hadda inay sideedii hore aan ahayn oo yar tahay oo siyaalo kale hadda la isu gudo marka ma fiicna run ahaantii waa gartay marka Faadmo ma heshaan wacyigelin ku saabsan khatarta iyo dhibaatada gudniinka fircooniga marka goobo waxbarashada joogtaan ma yarnaantii hadda ka hor meel laga hadlayo meel lagu falanqeynayo midna maan aragada ugu horeysa mana ka helo xagga iskoolka iyo wacyigelin ka socota waa gartay waxaan ognahay in gudniinka fircooniga inuu aad u saameeyay bulsho badan oo Soomaaliyeed gaar ahaan hablaheena boqolkiiba 99 ayaa la yiraahdaa waa gudniinkaas ayaa gabdhaha loo geysan dhibaateeyay marka adiga maadaama gabdhihii inaad qayb ka tahay bulshada Soomaaliyeed qayb ka tahay qoys baa ka soo jeeda adiga gabadh tahay gabdha ayaa sidoo kale qoran shaysan filaayo marka dadkaas Soomaaliyeed ee badan ee gabdhaha ay u saameeyay qayb ka tahay aniga waan ku jiraa gabdho badan u saameeyayna waan arkay maxaad marka ka aaminsan tahay dhibaatadiisa iyo dhibku ku haya gabdhaha dhibaatadiisa horta marka anigu horta weli goor ma gaarin laakiin se marka caadada tahay aad bay ii dhibtaa waan ku sakaraada waxba ma qabsan karo asbuuc inaan jiifo marmarka qaarkood ugu sababtaa maxaa la dhahay dad gabdho umulaya oo maxaa la dhahay la qalqalayana waan arkay la jexjeexay jirkoodii dhibaato loo geysanayo marka kuwa xitaa u dhintay way jiraan waa gartay